intaanaan u gelin taxliilinta filimka aan idin siiyo horodhac yar oo ku saabsan yahay filimkani. Halkani waa buuraha Colorado, waana deegaan aad dabiici u ah, dhulkuna aad u qurux badan yahay. Halkan waxaa looga cararay bahalkan lagu magacaabo monster. Waxa uuna baabiyay dhammaan dadkii ku noolaa deegaankani, ilaa gebi ahaanba dawladdu ay baabiisay intiisii ugu badnayd, kadibna ay u kala samaysay xuduud. Dadkiina ay ku amartay inaysan kori karin buuraha dhaadheer ee kor u dhaafaya 8,000 oo fiid. Dhammaan dadkii waa isaga qaxeen buurahan iyo deegaanada ku hoos yaalla oo dhan, ilaa ay raadiyeen deegaano kale oo nabad ah. Ninkan oo lagu magacaabo Hunter, oo ah aktarka filimka, ayaa waxa uu sameeyay community aad u fiican. Kate iyo Nina waa labadan gabdhood ee idiin muuqda. Waxa ay raacsan yihiin fikirka Hunter. Muddo yar oo ay ku noolaayeen deegaankii, waxa ay raadiyaha ka dhageysteen dawladda oo sheegtay inaysan deegaankani kuba noolaynba wax bahala ah. Dhammaan bahalihii ku noolaa oo dhan ay dawladdu laysay. Wiilkan oo lagu magacaabo Curious waxa dhalay aktarka filimka oo lagu magacaabo Hunter. Waxa uu maalimaha ka mid ah soo qaadi doonaa buurahan dhaadheer, isagoo isku dayi doona inuu xagga sare u soo koro. Ugu dambeyn safar dheer kadib, waxa uu soo gaaray fiinta sare ee buurta. Curious waxa uu maqlay durubadiiba dhawaq qayla oo markaasi xagga dambe gadaashiisa ka soo baxaya, ilaa ugu dambeyn uu cararay. Waxa uu arkay bahalkan xoogga weyn ee baacsanaya, laakiin waxa uu soo gaaray durbadiiba xuduudii. Halkan saaxiibayaal waxa idinka muuqda qoryahan alwaaxyada ee dhaadheer iyo sidoo kale waxaan ciidda cad u eg. Waa xuduudka ay dawladdu u kala samaysay bahalahan iyo dadka tuulada ku nool. Waxaan cad ee idin muuqdana waa kiimika bahalkan aad u dhibsanayo, suurtagalna aysan noqonayn inuu soo dhaafo. Wiilkii yaraa waa uu argagaxaya, waxa uuna fiirinayaa bahalkan xooggiisa iyo maanta nasiibkiisu siduu u fiicnaa. Kadibna waxa uu soo laabanayaa aabihiis. Aabihii ayaa ku oranaya, ma raba inaan ku waayo sidaan u waayay hooyada. Wiilkaygii oo mar dambe ha tegin buurahan dhaadheer, waxa badan halistooda. Kate waa ay ugaarsanaysaa ilaa ugu dambeyn ay ku dhufato shiishka. Waxa ayna soo qaadanayaan baciidkan aadka u weyn. Hunter ayaa ku qoslaya ilaa ugu dambeyn uu yiraahdo bahalkani waxa uu ku filan yahay deegaankan oo dhan. Saacadu waa xilli habeen ah. Hunter ayaa wuxuu maqlayaa wiilkiisii oo qufacaya, xanuun daranna uu saaran yahay, ilaa uu marka dambe soo ordo, kadibna uu keena daawo. Waa xilli habeen ah. Hunter waxa uu akhriyayaa buuggan oo uu ku sawiran tahay maapka gobolkan oo dhan. Waxa uu ku fakarayaa isaga iyo Kate iyo Nina in ay deegaankan ka suulin doonaan maalin bahalahan monsterka ah ee markaasi dadkii iyo dunyadiiba leefay. Kate ayaa u imaanaysa saaxiibkeed Hunter, waana ay sheekaysanayaan. Ugu dambeynna waxay isla qaadanayaan go'aan ah in ay dagaalamaan, hubna ay soo gataan. Hunter waxa uu tagayaa dukaanada lagu iibiyo hubka, ilaa ugu dambeyn qori aad u fiican uu ka soo gadan doono. Kate ayaa arkaysa, waxay leedahay maxaa iga qarisay qorigiina soo iibsatay, ilaa ugu dambeyn iyadiina ay soo gadatay. Gabadhan oo ah gabadha saddexaad ee filimka, laguna magacaabo Nina, ayaa waxa iyadoo cabsan ay ku leedahay, qorigan aad soo gadatay wax uu ka tarayo ma jirto bahalkani. Waa islugeynaysaa, iska dhaaf oo aniga taladeeda qaado. Laakiin waa ay ka dhaqaaqaysaa, waxaana u dulqaadan weynaysaa hadalkeeda. Waa subax waa beri ah. Hunter iyo sidoo kale labadii gabdhood waxa ay u soo dhaqaaqeen xagga sare ee buurta, ilaa ay doonayaan inay saaka ka soo takhalusaan bahalkan monsterka ah. Buuggan ayuu la soo baxayaa, waxa uuna tusayaa maapka iyo xagga la mari doono. Hunter ayaa waxa uu la soo istaagayaa Nina, waxa uuna ku leeyahay, maxay tahay dhalada khamriga ee aad sidatid, ilaa ay tiraahdo hadalkaaga waxa iga muhiimsan khamrigan. Ugu dambeynna waa uu xanaaqayaa ilaa uu ka dharbaxo khamrigii. Hunter, Kate iyo Nina waxa ay soo gaarayaan xuduudkii. Halkanna way meesha ay markaasi joogaan bahaluhu. Way ay tallaabeen. Ugu dambeynna waxa ay galeen kaymaha halista badan ee uu ku nool yahay bahalkani. Waxaan maraynaa qaybihii dhexe ee filimka. Fadlan waxa kaa codsanaya haddii aad halkan nala soo gaadhay inaadan naga ilaawin inaad muuqaalka like saartid. Waxa ay naga saacidaysaa in muuqaalkan uu gaaro meel dheer. Waana mahadsantihiin. Ilaa ay yimaadeen meeshii ugu dambeysay ee dawladdu kula dagaalantay bahalahan. Halkan waxa daadsan waa baabuurtii dawladda oo ah diiradda markaasi lagu xiro qoryaha. Kate waxa ay ku takhasustay cilmi baarista dhulka, kadibna waxa ay baaraysaa ciidda hoose si ay wax uga ogaato nolosha bahalkani. Kate ayaa waxay ku leedahay Nina, naga soo bixi meeshan, waqti badan ayaad ku qaadatay ciidan. Ilaa ugu dambeyn Nina ay soo agmarto, kadibna cayxun ay ku tiraahdo, waana ay dagaalamayaan. Waxay yimaadeen meel dalxiis oo markaasi looga guuray bahalahan dartood. Nina ayaa hal mar sii jeesanaysaa, kadibna waxay maqlaysaa qaylo ilaa ay aragto in bahal weyn uu soo socdo,
kadibna waa ay kala cararayaan. Nina waxa ay wajahday bahalkii halka Kiita ay carartay. Aktarkiina uu koray jaranjaradan sare si uu wiishkan u daaro si ay uga badbaadaan bahalkani. Kiita waxay xabadeynaysaa bahalkii, laakiin bahalkani ma ahan bahal xabad ay wax ka tarayso. Nina waxay xabadeynaysaa bahalkii ilaa ay Kiitana ay ka soo laabato ay istiraada ha uga tagin saaxiibada meeshan. Kiita ayaa wadata qori weyn ilaa ay markii dambe bambooyin culus ay ku dhufato, laakiin ma ahan waxaan wax ka taraya, waa uuna soo jiiraya ilaa ugu dambeyn ay Kiita ay cararto. Ninana sidoo kale ay daarto wiishka. Nina iyo Hunter waxa ay korayaan xagga sare ee wiishka, waxa ayna ka xabadeynayaan iyaga oo saaran wiishka, halka Kiita isku dayaysa inay saaxiibadeeda aysan ka harin ilaa ay raacdo. Xagga sare ayay ka soo boodaysaa Kiita, ugu dambeynna wiishkii ayay qabsanaysaa qaybta dambe oo sida ay rabtay lama helin, waxayna ugu dambeyn ku dhacday dhulka. Waa iska soo daba tuureen ilaa iyagoo ordaya ay ka gudbeen xuduudii. Nasiibna ay lahaayeen maanta in naftoodii ay badbaaday. Habeennimadii ayay isku imaanayaan casho, iyada oo mid kasta uu ka walwalsan yahay wixii maanta dhacay. Waa ayna tashanayaan ilaa ugu dambeyn ay isla qaateen go'aan ah in bahalkan ay beri weeraraan. Waagii ayaa beriyey. Nina iyo Kiita iyo Hunter waxa u soo dhaqaaqeen dhanka buurta ilaa ugu dambeyn labadii gabdhood ay weydiiyeen Hunter, maxay tahay qorshaheena maanta? Xagee ayaan ka gelaynaa buurta? Ilaa ugu dambeyn uu ku yiraahdo dherer dhan 8,000 oo feet. Laakiin waa ay yaabayaan labadii gabdhood, waa ayna ku qoslayaan ilaa marka dambe ay xanaaqaan oo ku yiraahdaan iyadoo ay tiri waxa inoo fudud inaanu xagga dhulka hoostiisa aanu ka galno bahalkan. Ilaa ay ugu dambeyn u soo dhaqaaqeen albaabka underground-ka ah. In yar kadib markay ay socdaan waxay arkayaan in albaabkani uu xiran yahay, laakiin waa ay ka wareegayaan iyagoo raadin doona albaab kale ay ka maraan. Waxa ay maqlayaan sanqar aad u cabsi badan. Waxay arkayaan bahalkii ilaa ay kala cararaan, waa ay soo ordayaan. Bahalkiina waa uu soo baxsanayaa, waana bahal awood badan, waana monsterkii laga baqan jiray. Xabad ayay furayaan, laakiin xabadoodii waxa ma tarayso ilaa markii dambe ay godkan yarka ah ay soo galaan. Godkanina ma ahan god uu soo gali kara bahalkan xooga weyn, laakiin wax kale ayaa meeshan ka dhici doona. Waxayna isku afkarteen inay tooshashka damiyaan, naqaskan isku celiyaan. Waxa bahalkii uu soo diray bahal kale oo yar. Monster yar ayaa ugu soo galay meeshii, waxa uuna fiirinayaa oxygen-ta iyo naqaska ka soo baxa dadkan, laakiin dhammaantood waxay isku celinayaan naqaska. Mid ka mid ah hadduu naqaskiisa uu bannaanka u soo baxo, waa uu ku daayay. Ilaa Watori markii dambe uu dareemay in labadan gabdhood mid ka mid ah uu naqasku ka soo bixi rabo. Taa beddelkeedna waxa uu doortay in bululeerka uu gacanta ku hayo uu ku dhufto derbiga. Sidii ayuu samaynayaa, bahalkiina waa uu kala wareegayaa isla markiiba. Halkii ayuu afka saarayaa, kadibna naqaska ayaa ka soo baxaya dhammaantood ilaa ay daloolkan yar ka soo baxaan. Kiita ayaa ugu horeysay, waxa ayna timi bannaanka, kadibna waxa ay fiirisay horteeda ilaa ay aragtay iyadoo foolka fool u hortaagan bahalkii weynaa ee monsterka ahaa. Way cabsatay Kiita, kadibna waxay isku dayday inay baxsato ilaa ugu dambeyn uu laabta intuu ka geliyay miciyihiisii uu xagga sare u jiitay. Hunter waa uu qaylinayaa, laakiin ma leh awood uu ku soo badbaadiyay saaxiibtii ilaa ugu dambeyn ay isaga carareen. Waxa ayna ka soo baxeen godkii maadaama Kiita uu cunay bahalkii. Rajadoodii ayaa baabaaday, waxaana ka baxay garab muhiim ah oo in badan la dagaalamayay. Hunter waa uu niyad jabsan yahay, laakiin Nina kadib markii ay saaxiibadeed dhimatay waxa ay gaartay go'aankiina waxay la wadaagtay aktarka iyadoo ku tiri waa inaanu tagnaa laboratory-ga weyn ee ku yaala magaaladaasi si aanu xabadayada aan isticmaalno ee bulletka aan tayo ugu soo samayno. Daawooyin iyo chemical ayaan isku darayaa, kadibna waxaan marinaynaa rasaasta afkeeda hore. Waxaan ku ballan qaadayaa markaasi inaanu ka guuleysan doono bahalkani, xabadda ku dhacdana uu dhiman doono. Waa ay soo dhaqaaqayaan ilaa ay yimaadaan deegaankii iyo meeshii ay rabeen. Kadibna waxay tagayaan cusbitaal laga guuray. Cusbitaalka ayay gudaha u soo galayaan iyagoo qoryahoodii sita, baqdin badanna dareemaya. Ilaa ugu dambeyn bahalkii uu soo weeraray, Atoriina uu soo cararay. Bahalkii ayaa Atorihii ku dhagay ilaa ay marka dambe faas soo qaadatay Nina, bahalkiina ay ka fujisay. Aktarka ayaa wuxuu arkayaa in haamagaas oo waaweyn meeshan ay ka xigaan dhinacan. Kadibna bahalkii ayaa soo ordaya ilaa uu markii dambe haamihii ugu dhuftay xabadda, bahalkiina uu sidaa ku dhintay. Kiimikada ayay meesha ka waayayaan ilaa ugu dambeyn ay ka soo dhaqaaqaan oo yimaadaan tuulo kale. Tuuladan waxaa ku yaala laboratory aad u weyn. Laboratory-ga ayay gudaha u galayaan ilaa ay arkaan daawadii ay rabtay gabadhani. Kadibna waa ay soo qaadaysaa, waxaana marinaysaa afka hore ee xabadda. Waxay soo xasuustay saaxiibteed sida foosha xun ee markaasi uu u dilay bahalku. Waxayna helaysaa farsamo kale oo ah markaas in lagu dhalaaliyo xabadda afkeeda daawadan kiimikalka ay isku dartay ee qastay. Aktarka ayay u diraysaa rasaas badan inuu hore u soo qaado ilaa ugu dambeyn gaarigii taayirka hore uu u baxay, halkaasna uu ku galay shil. Atoriya oo tabcaana ah ayaa ka soo baxaya gaarigii hal mar, laakiin hareerihiisa ayuu fiirinayaa
ilaa uu arko bahalkan aadka u weyn. kadibna qorigiisa ayuu gaari kala soo baxaya ilaa uu xagga sare ee buurta u cararo. laakiin maahan bahalkan mid ka haraya. Actarku wuxuu raadinayaa xuduudda uu markaa ka tallaabo, laakiin wuxuu arkayaa bahalkan xoogga weyn oo taaganba dhankii xuduudda, waana uu rajo dhigayaa, waxaana uu aaminayaa inay tahay maanta maalintiisii ugu dambeysay. hal mar ayaa bahalkii la waayaya, xabad ayaa ku dhacaya ilaa dhulkoo dhan uu gariiro, kadibna uu bahalkii qarxay. Atori waa uu yaabayaa, waxa uuna fiirinayaa xagga sare, mise waa Nina oo dagaalamaysa. kiimikadii ay sheegaysana kaga dhabaysay sidii inuu qarax ku xiran yahay oo kale. kadibna Nina ayaa tooganaysa bahalkii labaad ilaa isaguna sidii oo kale uu noqdo. bahalkii saddexaad ee kale ayaa soo ordaya, kadibna waxay ku furaysaa xabado ilaa ugu dambeyn isaguna sidii oo kale u qarxay. Nina waa ay qoslaysaa, waa ayna farxaysaa. Actarkuna waa uu qoslayaa ilaa uu yiraahdo, waxaan ku guulaysanay rajadii ahayd inaanu bahalahan deegaan ka suulino. qorshahaygii ahayd in xabadda bulletka lagu xirana waxay ahayd fikraddii aad ka wanaagsanayd ee aad noo keentay. Atori oo aad u faraxsan ayaa wuxuu imaanayaa wiilkiisa Curious, kadibna waxba ayuu siinayaa ilaa gabadhii Nina ahayd ay calankan taagto nabadda ah. kadibna waxaa arkaya dhammaan dadkii deegaanka ee nolosha u doontay deegaanada kale, iyagoo ka baqaya bahalahan halistooda. asxaabta qiimaha badan, filimkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynay. waa inoo iyo intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga.